خير الله سي ولكن يرى موجز يعني كهذي عن تاريخ الوالد رحمة الله عليه على سائر العلماء الصالحين. وإسكان موضوع سيدي سبا محاضرة وزمن بدن إسكان قادن لها، لكن ما دام أريتها سير تابتي وحائلة في عنا تبلينا أن الوحي يركشيو حمر بالوسو حرين جري. طبعا والله سو حرين جري دad كان يروى وين با ير كرنين، لكن من كان ير كتفسير كالإنجليزي وحو فسر ذيك يا هذا والله ما يدري مريض حمر بالوسو حرين جري يعني أرض dadku المدرسة التعليمية النظامية waxay ahayd xamar bay ahayd halkaas culumta laga qaadan jiray sada socotaan ba wadankaas caam ahaan geeska Afrika la yiraahdo Ethiopia iyo Soomaaliya iyo dhulkaas iyo dadka hadda meesha Kenya iyo dhulalkaas oo dhan markaz التعليمي wuxuu ahaa laba qaybood. qayb waa galbeedka, qaybna wuxuu ahaa koonfur. labada meel baa loo kala hijroon jiray marka wax la soo baranayo. qaybtaas galbeedka oo khaasatan u badnaa dadkaas hareeriyiinta ama noocaasa waxa ay mashhuur ku ahaayeen ama dadku ka doonan jireen culuum al-lugha, naxwada iyo magaranaysa wixii la halmaala balaaqada iyo baabkaas ay aad mashhuur ugu ahaayeen. cilmu al-hadiithna waa lahaayeen, hadiithkana waa jiray. qaybtan koonfurta waxaa aad iyo aad looga soo doonan jiray oo dadku ay soo qasdi jireen oo meel kaste looga soo xireen jiray cilmiga fiqhiga, fiqhu shaafici baa loo jeedaa iyo culumta kadalika luqadana waa jirtay, naxwada iyo tafsiirka iyo marka waxay ahayd meel dumaysa ama malja u ah ardada. بمعنى تعليم مساجد لقى أغنية ومكلية معها تسهيلات باجري، بمعنى وح عادة هيد أرض مركي قبل الله إيوه مقالوين ككريئة مقالوين المجرين برجاس دي بادية لقي مادو تذكر الحمر كأي قابل جري أو كلا قيب سنجري وقريه هذا لو كلا قيبنا يا أرضي وليبر قريبو تجا قريبو كقرية كلمة داسنا وحلا يرى والله وجلي قريبو كجلية هي وكلمة قديمة أيضا بمعنى cuntadu ka cunaa masaajidka la iska seexdaa oo guri la seexan maayo la masaajidka la iska seexdaa iyo meelahaas, laakiin cuntada guri baa lagu jiraya. nidaamkaas ay jiray in arday oo laga tagayo ma jiro, meel kale wax ka cunaana ma leh, waxay haystaana ma leh, saas loo iman jiray. marka xamar arrintaas looga soo qasdi jiray, dhulkaasna saas uu ahaa. nidaamkaas ayaana u sahlay in ardadu ay wax ka barato ay ka takharujto oo ay culama noqdaan, dabadeedna goboladii meelaha ka yimaadeen dib khayrka ay ugu faafiyaan. marka wuxuu sheekhu noo sheegay raxmatullahi calayh laba mashaayikh oo waaweyn, laba sheekh ayaa xamar markaa cilmigu markaas ku dhammaaday oo uu ku intihooday. sheekh wuxuu ahaa sheekhu tafsiir, cilmiga tafsiirka iyo culuum al-lugha, sheekh aadan cawliyahan baa la oran jiray. شيخ آدم عولية. شيخ كلنا وحوها شيخ أبو بكر بن شيخ محي الدين معلم مكرم، وده كان الحمر كأيوها أصل ودن كماش ولا شيء من قديم الزمان. شيخ حسين شيخ الفقه بوها. شيخ أبو بكر كاس أبيه اسمه محي الدين وحو شيخ ويجا شيء من علماء يعني علمي فقه شافعي ومركز ليلة وحا مركزه أهيد يمن هي ماشي حضرموت ليلة. وهذا كتبتي حتى الصومالي بريد لما يخرجين جرتي ماشي حواشي دي إيو مقرن يساء إيو شرح هذه اللي صنفه واحد دول كاسي أهيد نين مركا علماء ذا وين راح حضرموت با يميد بويري مقديشو أو الشيخ محي الدين أركي مركو أركي فقه ماشي وكتاغين يهي كلمة بويري بويري وحجربوا لولا العجمة لكان محي الدين أفقه من ابن حجر. لولا العجمة يعني صومالي هذا سعودة صومالي كتبتها صومالي أقول لك بينها
laga yaabaa isagoo callaamo ah haddana inuun af carabiga ku hadli karin. wuxuu yidhi cujmadaasi haddayna jiri lahayn sheekh muxyidiinkani wuxuu ka fiqhi badan yahay oo ka faqiihsan yahay ibnu xajar. ibnu xajarna waa ninka fiqhi shaafici ay ku dhammaaday wey. waxaa weeye wa saaxibu tasaniif almashhuura. ibnu xajar alcasqalaani ma aha, ibnu xajar alhaytamigii muxadidka ahna ma aha, ibnu xajar alhaytamiyi bitaa'i waay. waa faqiih mashhuura macruufa oo kutub almutawalaat ayuu alifaa. waa marka wuxuu yidhi markuu arkay wuxuu yidhi muxyidiinkani wuu ka fiqhi badan yahay ibnu xajar ee waxaa hortaagan cilmigiisa inuu soo baxo cujmadaasaa hortaagan. cujma yani carab waxaan ahayn cajam baa la yidhaha, yani af carabiga ciddaan ku hadlayn. af carabi la-aanta haddayna jiri lahayn ibnu xajar waa ka faqiihsanaan lahaa oo ma garanaysaa kutubtuu sanifi lahaa o alifi lahaa waay. waana mualafaad badanna waaba leeyihiinoo hadda makhtuudaad fara badan baa yaa ugu tagayba beri dhaweydan soo booqday xamar oy warasadiisii ama awlaadiisii ay hayaan. marka madrasadaasay ahayd, cilmigaas oo cajiibka ah ayaa laga qaadan jiray. wiilkiisa weeye marka kuu sheekhu la kulmay berigaa oo sheekh abubakar ayaa laga baran jiray, khaasatan fiqhiga bitasalsul bay baran jireen ilaa minhaajka laga gaaro. yani minhaajka kitaabka la yidhaha alimaam annawowi waxaan u malaynayaa alwaalid raxmatullah caleyh wuu noo akriyey. yani mubaaliq ma dhahay haddaan idhaha u xifdisanaa yani korku ka haya. marka inaga noo akrinayo waa mar dee 90kii iyo 100kiiba kusii dhowaa, walakin maca dalika ma iloobi. ma garatay. marka sheekh aadan la yidhaha isagu wuxuu akriyi jiray tafsiirka iyo culumtan kale luqada, laakiin tacaawun badan baa ka dhexeeyey. markuu ka hadli jiray sheekhu tawaaduca mashaa'ikhdaas, nin walbaba isagoo ra'si ah oo madaxa ayaa haddana darsiga kale sheekha kale markuu akrinayo sida ardayga u fadhiisanayo. sheekh abubakar markuu sheekh aadan tafsiirka akrinayo ardadu ka mid yahay, sheekh aadanna markii uu fiqhiga akrinayo sheekhan ardadu ka mid yahay. bal tawaaduca sheekh aadan cawliyahan baa la ohan jiray. sheekhaas tawaaduciisa waxaa ka mida wuxuu yidhi markaan anigu ka soo noqday yeman xadramowd oo aan dib ugu soo noqday xamar ayaa waxaa la yidhi buu yidhi wadaadkii cali ah waa soo noqdayoo cilmi cusub buu soo xambaaray oo tajwiid la yidhaah. ilmu tajwiid ma jirin. marka sheekhay wuxuu igu qasbay buu yidhi inaan jazariyada aqriyo. aniguna aad baan uga xishoonayay buu yidhi sheekhaygii baan u aqriyi karaa. markaasuu igu yidhi buu yidhi ma waxaad rabtaa in yowma alqiyaama xakamo jahannamo lagu geliyo? ille ninkii cilmi qariya yuljamu bilijaamin min jahannama la yidhiye ma saasaad doonaysaa? akhri cilmiga. sidaasuu marka igu idmay buu yidhi xalaqadii buu fadhiistay, xalaqadii nafsirkeedii anigii ardayga ah. marka waxaa igu kaliftay arrinta walaalkan hadaladiisa ka mid ahayd qole suufiya la dagaalantay iyo qole suufiya saatiri iyo suufiya maxay mas noqotay iyo wax yar waxaa ku yar jira iطlaaqaas inaan iska waanino kulligeenba, aniga isaga iyo kulliga walaalaheenba. iطlaaqa marka la iطlaaqiyo suufiya sidaa ah waa laga fiican yahay. lianna tasawuf alislaami tasawuf cilmu raqaa'iq baa la yidhaha. imaam ibn taymiya raximah llah kitaabkiisa mashhuurka ahee fataawiga juska 11aad ma garanaysaa uu kaga hadlay, waa mujalad kaamila wuxuu kaga hadlay asuufiya walfuqaraa. khulaasat lkalaam wuxuu ku soo koobay nimankaas suufiyada la yidhaah inay 3 qaybood yihiin. qaybo waxaa weeye buu yidhi suufiyat lxaqaa'iq oo waa rag ahlu xaqiiqo ah oo ahlullaahi ah, oo wuxuu ku tilmaamay inay yihiin sidiiqu hadihi اlumma fi hada اlfan. si wuxuu yidhi fani kastaba sidiiqiin u leeyihiin, oo haddii la yidhaha cilmiga sidiiqiin ay leeyihiin, oo jihaadka haddii la yidhaha rag sidiiqiin ku noqda ay yihiin. kadalika zuhdiga iyo taqashufka iyo adduunyada oo layska naco oo ilaahay la jeclaado ragga ku takhasusay iyaguna waa sidiiqu hadihi اlumma. suufiyat xaqaa'iq buu bixiyey. kuwa labaadna wuxuu yidhi waa suufiyat اlkhawaaniki aw اlkhawaaniqi. khawaaniqdu waa jamcu khaanqa, waa kelima farisiya,
وميلو لحرية لسمين جري ورق أنت كحرودان هالكاس ذكر يقول يكون جري جرين ذكر يو خيركم بيكون حجري جرين وانا لقودين جري إلى هنا واسكحوس جرين رجع يجنا شيخ ابن تيمية كان هذا شيخ الإسلام ابن تيمية ما أوسن عين وفي عينهم بيقول هذا يسكيل عليان يعني حدود الشرع يسكيل عليان يجنا موسى كواس ناس الدقيق بقول المام قيد صدحات بيقول صوفية الرسمي والرج دركودي وكره حدي يسوء كيسيي لكن أن يجا شقق لهين أو مبتدعين أو ضالين أو بليه باس أو لن أنت كان سدين حقنا نميد كود أو كري يسوء كيسيي ما قالت مركز رجعاس ويرجع هليي يكون عياري وإلا ماشي يكون انتهوتو سلف الصالحة الجنيد نكي الأورنجري رحمة الله عليه شيخي شيخ المحاسبي وشيخي الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه مركي لو شيخ لو تلمامين لي إمام كاسا جوجة شيخ خاص محاسبي وهالكاسو حلقة كلية هيبوها بين أردك هذا إنه دقيستو اسمنا الشيخ إنه أحمد بن حنبل يعني مركي وحويري نكي كهذا كتاب كان رسالة المستشهدين أي أول كذا عبد الشيخ عبد الفتاح غد هالكا وكوت المامة وحول الشيخ أحمد بن حنبل هي تلميذ لسعودي أيا دقيستيها بينكي درسي وشيخها وأخرني ورقائق كصحاب سنة رقائق القلوب يعني رقائق وحلو جيدة وحيانا قلبك جلعية إلهي جعيل كيسي آخر جنة نعيم كاي وخير كي الدنيا زهد يدي تغشف كذا ما قالت مركز وحو يري هبينكي مركي تجين بعد صلاة العشاء تقريبا إلى نصف الليل ولا أمسنا أرددوا أمسنا الشيخ حسن وأمسنا شيخ أحمد بن حنبل نددكوا كل حجرة اسمه شيخ ولا أمسنا بعد منتصف الليل بهذا البلابي هذا مركوب باللابي وهم باللابتي حتى أغمي وأغشي على الإمام أحمد بن حنبل أحمد بن حنبل وابسوا حيوة هذا الكي رحمة الله عليه والله سوحي فلما أفاق مركز وكعي أيو أردق يسير إن كان ولي إن كان ضد كانوا كلام ما أرق ومع ذلك كونا سيحين مايو إن أردد أترعى ويري مركا يفسر يعني إلين كونا سيحين ما أردق يسمحوا ساويري بمعنى أردق يسمحوا أركي نبوغ علمي إنه قاري كرو وهذا سيدا نوجد سيدا ما هي ولا لعيني حلا يقولون أنتوا فديه وأغمي عليه وكذا وهذا ولا لعيني ما وحوجد أديو ما دام إلهي وكوا فجي إن سيدي سوكالة سيدي أحمد بن حنبل أو اسكو درس هذه إن تقشفكي زهدي يتصوفكي صحيحة هي علمي أو كلو الله ربا تاسو للدواني مركز أساس أوجدكم ما أركي يبينون وأرنتاس تعليق مكبح الشيخ عبد الفتاح أبو غدة مركز حوجد أرجع وكهض الشيخ الإسلام ابن تيمية وأرجع وياه سلاس أوجد ما وحفي عن هذه يقول مركز كهض إنه نمان ضمبئ وصوب حي وبلايا كالست كدر صدي أو دين أن جرين أنت إسكا كينين وحسكا شيكتي أيا مقع كعياري مقع سيكعياري مناسبة أردت هذا يقول كلفتين وحوي الشيخ علي صوفي أوجي اسمها ولقب كيسة أسجى صوفي لقو ناريسي لقو لقب لوجا دقي سببته لوجا دقي المركزي شيء أسجى نو شيء بريجاس وأرضيها حمر أنجوجي بيري sidaan idin sheegay guriyaha ay ardada lagu jiri jiray arday walba reer baa qaadanaya cuntadu la cunay isaga marka waxa ka qaalib noqotay yani raqat alqalb iyo khushuuca iyo khuduuca qalbigiisa ku jiray iyo de iimaanka qawiga qalbigiisa ku jiray ayaa wuxuu yiri markii guri la geeyo haday banaag ishaydu ay ku dhacdo guriga ku noqon maayo guriga iska joogto oo de reerkeedii ka shaqaysanaysa haday saa uu soo agmarto oo ishiisa ay ku dhacdo dib ugu noqon maayo guriga masaajidka isaga soo noqonaya 2 cisho 3 cisho markaan qado ila guriga tagi maayo ayaa sheekh loo sheegay sheekh aadan baana xaq ardada qaabilsana tartiibta ardada ma aragtay iyo jiridoodi iyo kala sheekh aadan awliyaha ba xisaab sanab markaas loo sheegay abu ilahay wadaadka caliha waa ka soo noqday maalmahan 3 bil waxa ma cunin guriga ma tagi maayo naag buu arkay bas ma ku noqon maayo marka 2 goor 3 goor markii guriga u celiyay hadana aan isaga soo cararay marka uu dhahiga ay ku dhacdo naag aan isaga soo cararay
أي ما نتدى مشاهد كإستاجي صلاة دي مركز لقى بحي وإستاجي وحيري جماعة يا هنيجا حتى الشيخ ومركو شيء لهجدي يسأل الحمر كوكو شيء كذي لأن الشيخ عادنا أولياء لو إسكال ورا الحمر وحيري يا لو دعية يا لو دعية أو فاتح له مرة وذاتكو هل كان أو علي ليرا علي صوفي وايه وذات صوفي وايه حديث بالعان أركو قريسكو أركو ما كنا قناي قريسكو أركو ما كنا قناي يا لو دعينا قري بالعان جوجين جينا سافير يقول مركا نندقى قعنت تاجي وحيري بوينا أنا قادنا أنا كحينا قريجا جينا قريجا بالعان وجوجتها لكن ما أركاي سيريبا وحيري الحمد لله وحتى الشيخ مركو نوش شيء بهذه اللهجة نوش شيء اللهجة الحمر كاس نوش شيء سيريبا إلهي ونعمي ويقولي وحن تجي دقاس وناكسن ما بأركيه بيقولي أبدا هدي وجوج ساي كيني عنتدي هدي وسجوجنا وحن أركيه عنتدي وبناك إيتان هل كاسان كوعنا واسكسون نقناه سيريبا كنت جيب مركم حال علي صوفي اللي يقول جيب علي صوفي أنا قرنتي وأد بنو كهذا يقولي وأنا إسكودي أنا نسكعلي وريقداي ورمجع على قدافة ورمجع علي بالليل علي بن عبد الرحمن بالليل أبيش عبد الرحمن بالليل والعلي بن عبد الرحمن بالليل أنا كدوني يساء وير ما بدل أكياب وهي فجوي علي صوفي ساسان كلهم مستوي لا أن يمن كتري مركان يمن آذي على الصومالي بيسوب الشيء إلا شوف ما شاء الله جماعة على الصومالي أنا كل صومالي كابل على الصومالي هسان أرجع له في المركز على الصومالي صاروا بان صون نقضي مركان صون نقضي وحان إسلهاب ويري ما ولا إلو مركا شيخ قصو مركا شيء حير ماشى بري أنا جو مال مريا بين حبة طلوا ما بوصاص يا حيد الله أسقري به لو كاسو دو بريغاس ميلاس جوغي أنا مال حبة سا مريا بوري أيا المير ير شنجر لحجر كير أو عيد رماية كو عيارية أيان سواق مري مركان أكتوذا مري أيا مت يا كمدا وحير بوري الله واكن شيخ علي صوفي ولا حباسي انت سويري وكان شيخ علي صوفي ولا حباسي بهذا اللفظ شيخ علي صوفي horta waan yaabay buu markaan maqlay صوفي waan yaabay magaca la iloobay buu ahaa barina hadii muusan joogin markaas meel magaca laga ciyaalkan ku soo noqday buu maxaa badii dhibatay oo ciyaal iska ciyaaray wariyaa hadalka yiri wariyaa ku dhawaaqay adba sheeg ilmo yar yar oo cid ku ciyaaray maxay la hadlayeen wax meeshii ka hadlay codku cod ilmo yar buu ahaa haddaan ku soo noqday oon ilmihii weydiiyey war waa kuma wariyaa hadlay ilmo yar maxaad u dhiibatay oo cid ku ciyaaray maalma kadib talyaanigii baa xiray buu maxaa isu soo beegmay waa ka sheekh cali suufi hee wala xabaasi wala xiri waay taswiir buu waa ka sheekh cali suufi wala xabaasi ولا يحرب ولا واحد يركض ولا يحرب مقعنا كان ألف جوجي شيخ علي صوفي شيخ مركز أنا قرتي واحد حق إلهي وكسر عدوي مركز نسكت يقول كان أنت هو ديني جري لكن وكسر عليه يقول أسكراف سقاط مركز أصل مقع مش شيخ اللي بيحيي هالكاس أهيد بري دبوا مشان وكتري ما لها سبل كاس سومالي دكتي توبيو هيستيو وتعليم تقبل لابي وتثقيف وقبل لابي وضدك بري وكذا أبداً وكهروي وأون حمر وكسر نقطة سووا لكن مركو سكهض ليو أما وراقه قريو أما هو حسمينيو ما قرجرين لفظ قاسي لقب قاسي علي بن الشيخ عبد الرحمن بقرجري علي ابن الشيخ عبد الرحمن بقرجري دتك باكو أورنجري الشيخ علي الصوفي وأنا اسكوا حين نقطة حتى مسجد كهذا مشهور مساجد كالشيخ علي الصوفي اللي كويا كاسب البلارة إن بدن بكذا قال لهم ما قاعش والمسجد كان وحن أبيحي مسجد القرآن الكريم مسجد القرآن ده ودي ذي مسجد القرآن بالليلة رسميا لكن ده في حاليه مسجد كشعل شوف خلاص ولله الحمد مركا لله الحمد انت حسن ربائنا وشيء الأصل هذا مقاشان دتكي هوري صالح حتى سندك حديث توتكو أركيسان
أسانيد درجة وين بخاري وغيرهم وهتكون أركيس فلان الصوفي بتكيليش في سند الأئمة مركا اللفظي قاس أسل كيسو لفظي في عنبوءها وجيدونا كسنة وولها ددونا كسنة صالحين ولولا جيدي لكن مركي دنبه dad quluba gadi iyo balaayo aan jirin iska samaystay ayaa markii dambe magaca ku ciyaaray horta saa loo ogaado insha Allah ta'ala iطلاقنا han iska ilaalino al-iطلاق laysa tayyib laana dadkii hore ee saalixiinta ahaa ee magacaas la baxay dad aad iyo aad wanaagsan baahan Soomaalidana sideedaba inaad la socotaan jiilkiina hadda saxwada ku soo koray ma aqaan laakiin dadkii hore ninka ay ku arkaan cibaado badan iyo hebel suufi uu noqday loo rajay hebel waa suufi mu noqday متى بسمها بري حمر مركي لنا حري او حبسي كان كجري او كسو بخني waxa ila socday marka aniga waxaan nin la oran jiray Maxamed Ali Daahir oo buugaag qori jiray subhanallah maadan kristaamo bikaraayo marka nin dawladda wuxuu ahaa meel maareeyo shada biraha iyo saas soo marayo marka qofka la sii daayo 8 bilood iyo bar meelahaas baan u xidhnay marka inta uu san guriga tagin waa inuu odayga soo maraa waxweynaha waa inuu soo maraa lana dardaarmaa oo wax loo sheegaa oo leeyahay sidan waay hadii ma aragtay fagfag la arkana meeshii baa aftaalo dib loo celinay bogta marka waxaan xusuustaa markii uu nala hadlayay Maxamed Ali Daahir wuxuu ku yiri nin fiican oo kacaanaadahay oo wadanka u shaqeeyo bariyahan dambe suufiyowday taas ku yiri bariyahan dambe ay suufiyowday oo waxaan qorqoraysaa oo kada oo احنا xoogay canaana u leeyahay yani waa suufiyoodo marka waa suufiyoodo marka salaad iyo masaajidkii marka qof ku xirmo hebel waa suufiyoodo waa loo rajay asaasaad waxaad u garanaysaa asl الكلمه عند الصوماليين inay kelimad fiican ay tahay meel fiican ay ka soo jeedaan tawfiiq Allah na waafajiyo